daawadayaasheeda qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkoodan aan ku eegayno taariikhda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Anuur ee degmada Baran ee gobolka Sanaag kaasoo ay idiin soo diyaarisay adeecada codka bulshada Soomaaliyeed daawasho wacan حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله أصون النفس أحميها بنور الله أهديها أحميها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل جيلا بعد جيل في ذات العلا والقصد النبيل جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل وازداد التقى من قبل الرحيل وهو النور من مشكاة الرسول وازداد التقى من قبل الرحيل وهو النور من مشكاة الرسول dugsiga Anuur oo ka kooban dugsi hoose dhexe iyo sare ayaa waxa la aasaasay sanadkii 1998 dugsigan ayaa waxa aasaasay dhalinyaro aqoon-yahan ah oo dareentay baahida loo qabo in la asaaso goob waxbarasho oo nooc kale ay u baahan tahay degmada Baran dugsiga Anuur ayaa waxa laga furay xarunta agoomaha ee dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Baran halkaas oo ay asaaskeeda lahaayeen iyo fikradeeda qaar kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ee asaastay dugsigaasi dugsigan ayaa waxa lagu bilaabay dugsi hoose dhexe kaasoo muddo dhowr sano ah uu ka koobnaa oo ay ka bixin ilaa 9 dufcadood sanadkii 2008 ayaa uu dugsigu u gudbay dugsi sare markii uu arkay maamulka baahida arinta uu qabo dugsiga intii uu yeeshay dugsiga sare ayaa ilaa hadda waxa ka qalin jabiyay 2 dufcadood oo ka kala baxay sanad dugsiyeedkii 2011 iyo sanadkii sanad dugsiyeedkii 2012 dugsiga Anuur oo ay dhigtaan arday gaaraysa 800 kuwaas oo ka kooban dugsi hoose dhexe iyo sare waxayna ka kooban yihiin galasaanta ay ku dhigtaan 15 galad macallimiinta ka howlgasha dugsiga ayaa waxay kor u dhaafayaan 20 macallin dugsiga Anuur ayaan ku koobnay inuu ardayda waxbarasho qurasiyo waxa uu sidoo kale ardayda ka dhisaa dhinaca thaqaafada aqoonta guud dhinaca sportska kuwaas oo uu qabta khamiisaha iyagoo oo ay ka kooban yihiin iyagoo oo uu qaybiyo kooxo isugu jira fasalada uu ka kooban yahay dugsiga Anuur ayaa wuxuu sidoo kale waxbarasho bilaash iyo waliba lacag yowsiya caruur agooma ah kuwaas oo ay bixiyaan hay'adaha islaamiga ah dhinaca quudinta ayaa uu maamulka iyo macallimiinta dugsiga ardayda
hablaha siiya saliid iyo raashin ay hay'adda WFP siiso sanad kasta dugsigaasi sidoo kalena wuxuu ardayda u sameeyaa maalin kasta xilliga biririfta shurbad taasoo ay wax weyn u tarto baahida ardayda dugsiga Al-Nuur ayaan ku koobnay inuu waxbarasho kaliya siiyo bulshada waxa kale uu wax ka qabta arrimaha bulshada sida hagaajinta wadooyinka iyo wacyigelinta bulshada isagoo sanadkii la soo dhaafay dayactir iyo hagaajin ku sameeyay wadada isku xidha isbitaalka guud ee degmada Baran iyo magaalada taasoo dhibaato badan ay ka haystay gaadiidleyda marta wadadaasi waxayna ku guuleysay inay hagaajiyaan dugsiga Al-Nuur ayaa waxa uu sanadkii la soo dhaafay ku guuleysay koobka aqoonta Puntland isagoo muujiyay tayada aqoontiisa isagoo noqday xidigii dugsiyada Puntland sidoo kale waxa marna la ilaawi doon isagu inuu keligii ka tartamayay gobolka Sanaag dugsiga Al-Nuur oo jira 15 sano ayaa waxa ka qalin jibiyay arday gaarisa boqolaal kuwaas oo jaamacado u aaday dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaana ay leeyihiin ardaydaasi shabakad ay ku wada xiriiraan barta Facebook halkaas oo la isku gudbiyo meesha uu marayo dugsiga iyo xaalkiisa maalin kasta dugsiga Al-Nuur oo ardaydiisu sanadba sanadka ka dambaysa sii badanaysa ayaa waxa hoos yimaada goobo waxbarasho oo aad u tiro badan waxaana kamid ah dugsiga haweenka ee lagu barto quraanka iyo daraasaadka islaamka iyo xadaanada daaru quraan oo sanad kasta ay ka qalin jabiyaan arday xufaad ah dugsiga Al-Nuur ayaa waxa sidoo kale suurta gashay inuu sanadka dhagax dhigo dugsi sare markii uu arkay baahida loo qabo wuxuuna xaafadda Waabari ka iibsaday joogo gaarisa 500 oo fud taasoo uu ka bilaabay dugsiga sare waana dugsiga Al-Nuur ayaa waxa uu bulshada u soo saaraa sanadba sanadka ka dambaysa arday ka dhisan dhinaca thaqaafada islaamka aqoonta maadiga akhlaaqda qiyamka wanaagsan kuwaas oo markay daafaha adduunka ku yaala galaan u suurta gashay inay kaalmo muuqda ka qaataan jaamacadaha أسنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال يا جنود الله سيروا للأمام في سبيل الله ينصرنا الرحمن يا جنود الله سيروا للأمام في سبيل الله ينصرنا الرحمن يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال هيا للجهاد فتية البلاد بالعد الإيمان هيا يا أخوان هيا يا أخوان هيا يا أخوان هيا يا أخوان دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال بقول ما شاء الله إن شاء الله وحن رجينا ناطا يمستفر بنا فرحة يوم هيدي رجينا نمعه يهرمر هيدي تاسو هم ما تقول وانقرني قبل سنة فرحان تقول بران وحادنا معي وهذا سود وهذا سود gaariga soo gaariga tartankii Puntland iyo koobkii dhextaagna waxaa taabay nuur badan aniguna tahniyadiyo taageero buuxdiyo ubax baan u taago ukun baan ku tuuro taajka habataaro surdo baan u qalayo tis abaalgud badanaan tunka aan u saaro tiriib weeye baxayo sanaag laga dhex taago qorax weeye timiyo mugdigii tirtiriyo tacabkii la geliyey siday tahay u qaateen
وكانت تنب كان 2013 هي 10 كيلو التباب الشيسو وين المتابعة أنا سأجد بنان بحي إلى ولا فرحة الوداعان هذه أتوا مع سنتين بفارس عن بينهم مغرى ضد تيسا سكوتوين بيل بيجاران ومع سنتين نكون تعلير ومجال وطن تهنية نكون بطلنا علور وحاضرين arladana tayeyn kara filmadoodahoodiyo dhalintooda turuqale qaar baa tirtirayo sii tahriibinayo laastaagan xeebtiyo saxaraha ku tuuro qaar baa tola'aylo ku taagaya aakey
قاربا تواكيو قصو تولقادو كتورا يميرتان 2012 tartankii Puntland iyo koobkii dhextaagna waxaa taabay nuur badan aniguna tahniyadiyo taageero buuxdiyo ubax baan u taago ukun baan ku tuuro taaj dahaba saaro suldo baan u qalayo tis abaalgud badanaan tunka aan u saaro tiriib weeye baxayo sanaag laga dhex taago qorax weeye timiyo mugdigii tirtiriyo tacabkii la geliyey siday tahay u qaateen waa keentay tiribkane 2013 iyo 10 kilo xiga u tabaabushayso waa inaynu taagnaa ما ترتن على المروة ترتن ولا المروة وفضلات الله موتا لما برلمان يمرتد حد ومروب الإليا وعلى محضر السنة يوم الزلاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد عبد الله تي Somali Public Radio magaalada Barane xarunta gobolka Sanaag